wacan oo wanaagsan daawadayaal idlahaantiinba kusoo dhawaada barnaamijkii toddobaadlaha ahaa kuna saabsanaa ururinta dhacdooyinka caalamka ee toddobaad walba aan soo aruurino islamarkaana aan maanta oo sabti ah idiin soo gudbino. haddaba dhacdadaani ayaa waxa ay ka dhacday Kuuriyada Waqooyi waa dal lagu tilmaamo kaligistaris gamaahuure. John waxa uu saqdi dhexe hurdada ka toosiyay Kim oo markaasi aanan ogeyn meel looga yimaaday waxa uuna u kaxeeyay jidkii markaasi oo la baxsan lahaa ee uu horay u soo qorsheystay. habeen ka hor ayuu sii diyaarsaday laba boorso oo u diyaarsaday dharkii iyo waliba cunadii uu u baahnaa. wuxuu sidoo kale diyaarsaday mindi iyo sun haddii la qabto inta aan la qaban uu markaasi uu isleeyahay waad cabi doontaa. fursad kale ma aanan helin ayuu yiri. waxaan sitaa qori oo Kim ay isku dayday in ay ka dhaadhiciso in uu ka tago, laakiin John waa uu ku adkaystay inuu qorigaani qaadanayo. waxaan ogaa inaan fursad haystay habeenkaasi oo kaliya haddaanan habeenkaas sidaasi samayn lahayn waa la qaban lahaa waana la idili lahaa ayuu yiri John oo 26 jir ah. haddii ay isku dayaan in ay baxsashada iga hor istaagaan waxaan qorsheynayay in aan xabado ku rido orodna aan isu sii daayo oon orod uga baxsado. haddii aan orod uga baxsan waayana waxaan ii qorsheysneed in aan isdilo isla markaana aan sunta aan cabo. haddii arrimahaas oo dhan aysan ii suurtagalin waxaa ii qorsheysneed in aan nafta isdhaafiyo. mindi ayaan wataa, mindidana aan isgeliyo. waa haddii uu sunta cabo isla markaana uu ku dhiman waayo. mar haddaan dhimasho isku diyaariyeyna haba yaraatee wax i cabsi gelinayay ma aysan jirin ayuu yiri John. labadoodaba daaqadaha xabsiga ayay ka soo boodeen waxa ayna ku soo dhaceen goob weyn oo markaasi maxaabiistu ay ku jimicsanaysay. hortooda waxaa ku yaala derbi dheer. derbigaasi way adag tahay sida looga gudbo, balse waxaa sidoo kale waardiyeeyo ciidamada eeyaha u tababaran in maxaabiista iyo waxyaalaha ka soo agdhawaado xabsiga ay markaasi lagu fasaxo. haddii xitaa aysan arag cidna ayuu yiri ee ilaalada deyrka xabsiga ku wareegsan, haddana waxaa joogo ciidamo dusha sare xabsiga gaaf wareego isla markaana in ay ka gudbaan webiga Tom ay ku adkaan doonto. laakiin wuxuu yiri wax kaste oon u damacsaneen waxaan ugu qaaday qatar kaste oo markaasi aan u bareerno waxa aysan naga hor istaageenin halka aan hiigsaneen. Kim waxaa laga soo qaaday xabsiga dhexe waxaana loo bedelay xabsi adag midkii ay ku xirneed. labadooduba way ogaayeen in ay adag tahay in xabsigaasi si nolol uga baxsadaan. inta badan maxbuuska iyo ilaaladiisu wax saaxiibtinimo iyo xiriir ma dhexmari karto, sharciga ayaanan dhigaynin. maxbuuska iyo ilaaladiisa waxay kulmeen xilli markaasi ee xabsiga la soo geliyay Kim. John wuxuu ka mid ahaa ilaalada ka shaqeysa xabsiga oo ku yaala Kuuriyada Waqooyi. isaga iyo waliba asxaabtiisa waxay Kim iyo dhowr maxbuus oo kale ka ilaalinayeen xabsigaasi maalin iyo habeenba waxaan dhammaantood ahaayeen xukun sugayaal. Kim waxaa qabtay indhaha John waxayna ku labisneed dhar qurux badan. muuqaalkeeda cajiibka ah ayaa soo jiitay. Kim ayaa waxa ay markii ugu horeysay ee la soo xirayay ay ka shaqeynaysay hawl dulaalnimo oo dalka khatar badan u leh, iyada oo lagu eedeeyay inay dadka Kuuriyada Waqooyi ee ka soo jeeda ay u gudbiso xadka Shiinaha ay la wadaagto Kuuriyada Waqooyi. wadadaasi oo halka ay John iyo Kim doonayeen in ay ka gudbaan. shaqooyinka noocaan ah ma qaban kartid mar haddaadan qof ku dhex lahayn ciidamada militariga ee gaaf wareega xuduudda. askarta waxaan siin jiray laaluush si ay dhinacyada uga eegaan isla markaana ay ii ilaaliyaan ayay tiri. waxayna sheegtay 6 sano ee la soo dhaafay in hawshaasi ay guulo badan ka gaartay isla markaana ay dhaqaale ay ka sameysay. kadib markii la soo qabtay ayaa waxaa lagu xukumay 5 sano oo xabsi ah. markii ay xabsigaasi soo dhamaysatayna shaqadii dulaalnimada ee aadka u khatarta badneed ayay dib ugu laabatay. telefoonada gacanta ee Kuuriyada Waqooyi waxaa ka xayiran ama ka xiranba qadka uu qofka dibadda uu ku wici karo. marka Kim waxaa lagu soo eedeeyay in ay telefoonada dibadda ah ay markaasi Shiinaha kula xiriirtay. telefoonadaasi oo ay adeegsanaysay inay dadka Shiinaha u tahriibinaysay. waxaan u sheegay ayay tiri askarta soo qabatay in ay isii daayaan. si kastana waan u baryay oo waan ula hadlay, balse lacag taa doontaan xitaa sheegta ayaan iri waysa iga diideen ayay tiri. si aad Kuuriyada Waqooyi ugu noolaato waxaad u baahan tahay lacag, balse xaaladdu marba marka kasii dambayso way kasii daraysaa. xitaa imtixaanaadka marka iskuulada ama jaamacadaha loo galayo waxaa ku qasbanaanaysaa in aad laaluush aad dhiibto si aad markaasi dhibco badan aad u keento ardayda ka horeysana aad markaasi aad uga hormarto. xiriir dhex maro maxbuus iyo ilaaladiisa ayaa inta badan ah mid aan loo baran.
xiran. maxaabiista xitaa looma ogola in ay il buuxda ku fiiriyaan askarta ilaalinaysa, ayuu yidhi John. sida cirka iyo dhulka ay u kala fog yihiin ayay u kala sarreeyaan. kaamirooyinka ayaa meel walba ku xiran, marka maxbuuska waxa uu si fudud ula socon karaa qofka ka agdhow isaga oo la soconaya dhaqdhaqaaqa kaamiradooda. gabadha maxbuuska ah daryeel gaar ah ayaan siin jiray, ayuu yidhi Kim. waxaa lagu xukumay 5 sano oo xarig ah, balse xabsiga Kongori oo aadka u cabsida badan waxay ku jirtay 3 bilood oo keliya. rajabeel ayaa igu dhacay inaan isdilo, xataa marar badan ayaan ku fakeray, mar walbina waan ooyi jiray, ayay tiri. marka aad xabsigaani adag aad gasho waxaa lagaala noqonayaa muwaadinnimada, ayuu yidhi John. adiga wixii markaa ka danbeeyay bini aadam maba tihidba, xawayaanka xitaa waad ka hooseysaa, ayuu yidhi. inaan ku caawiyo ayaan doonayaa walaashay, haddii kale xabsigaani ayaad ku dhimanaysaa. wadada keliya oon kugu badbaadin karana waxay tahay inaan xabsigaani kaa saara, ayuu yidhi. muwaadiniin badan oo Kuuriyada Waqooyi u dhashay waxaa la baray in aysan cidna ku kalsoonaan, waxaana u malaynayaa in khiyaano aad ila damacsan tahay, ayay tiri. hadalkiisa waan ka soo horjeestay, waxaana ku iri ma basaas ayaa tahay? maxaad ka faa'iideysaa in aad ibasaasto iyo weliba inaad naftayda halis geliso? balse waxa uu igu yidhi xaalku sidaad mooday maaha. waxa uu ii sheegay in uu doonayo in uu xabsigaani iga saaro oo uu ila baxsado, islamarkaana ina geeyo dalka Kuuriyada Koonfureed. Kim waxa ay tiri waxaan bilaabay in aan hadallada John aan ku kalsoonaado, iyadoo haddana cabsi aad u badan dareemayso. wadnahayga si waali ayuu u garaacmayay, ayay tiri Kim. weli taariikhda Kuuriya Waqooyi kama dhicin in ay maxbuus iyo ilaaladiisa isla baxsadaan. annaga oo madowga ka faa'iideysanayno habeenkii waxaan ka soo boodnay daaqadaha xabsiga, waxaana soo dhaafnay webiga dabaal ayaanan ku soo gudubnay. Kim jirkeeda aad ayuu daciif u ahaa oo xabsiga ayay bilooyin ku jirtay. webiga markaan si nabad ah ku gaarnay ayaan waxaan aragnay iftiin inoo soo jirsaday wax ka yar 50 mitir. waxa uuna iftiinkaasi ka imaanaya ciidamada ilaalada xadka labada dal. meel ayaan ku dhuumanay si aan hadalkooda u dhageysano, waxaana ogaanay in ay yihiin ciidamo markaasi isbedelayo. wax yar ayaan halkaasi joognay. 30 daqiiqo kadib markii aan shanqar weynayna ayaan dhanka webiga aadnay. kadib aniga waan dabaashay, balse Kim dabaal may aysan garanayn. John gacanna qorigiisa ayuu ku qabsaday, gacanna Kim si uu webigaasi tuunar uga gudbiyo. markii aan bartamaha webiga gaarnay ayaan arkay biyaha oo madaxayga ka sara maray oo ilaqay, ayuu yidhi. biyaha ayaan quustay, mana awoodin inaan indhaha kala qaado. Kim waxa ay John ka bariday in uu dib u celiyo. waxaan u sheegay haddii aan dib u noqono labadeennaba waan dhimanaynaa, kolba haddaan dhimanayno halkaan aan ku dhimanno. balse waan rajabeelay, waana ku fakarayay. ugu dambayntii John lugihiisa ayaa dhulka taabtay. webiga ayaana oga baxnay. waxaan nabad ku gaarnay xadka Shiinaha, wallow uu xadkaasi laftiisa ammaan ahayn. 3 maalmood markaan duurka ku dhuumaalaysanay waxaan la kulanay dadka deegaanka oo naga caawiyay telefoon si aan markaasi dulaaliin naga caawiyo sidaan xadka uga tilaabi lahayn. balse dulaalkii wuxuu inoo sheegay in ciidamada Kuuriyada Waqooyi heegan buuxa la geliyay si ay noo soo qabtaan. askarta Shiinaha ayaa ka caawinaya soo qabashadeena. falkaani ay ku dhaqaaqeen Kim iyo John ayaa noqonaya mid si weyn u waxyeelaya qoyskooda ay kaga soo tageen Kuuriyada Waqooyi, iyadoo ay dhici karto in su'aalo badan la weydiiyo iyo weliba dhibaato kalena ay dowladda kala kulmaan. waxaan dareemayaa in aan dambiile ahay maadaama aan ninkaygii iyo carruurtaydiiba ka soo tagay. qalbi jab aad u weyn ayaa igu dhacay, ayay Kim tiri. John ayaa sidoo kale waxa uu dareemayay dareen la mid ah midka Kim, waxa uuna bilaabay heeso iyo weliba uu markaasi ku madadaalinayo, murugadana iskaga baabi'inayo. markii ay gaareen halkii ay u socdeen waxa ay qorsheeyeen inay aadaan Mareykanka oo waxay bedeleen qorshihii ahaa Kuuriyada Koonfureed. Mareykanka ii raac ayuu John ku bariyay Kim. madaxa ayay intay lushay iyada oo muujinayso diidmada kalsooni kuma qabo maadaama aan af Ingiriis ku hadlin, waana ka cabsanaya, ayay tiri dalka Mareykanka. John wuxuu isku dayay in uu ka dhaadhiciyo isaga oo u sheegay hadday israacaan in ay af Ingiriis wada baranayaan. Kim oo markaasi ka cagajiidayso inay dib ula safarto John ayaa waxa ay tiri meel kaste oo aad tagto ha iloobin
Kim oo markaasi si degan ay ula hadashay John, balse labadooduba waxay ku faraxsan yihiin in ay ka soo baxsadeen nidaamkii Kuuriyada Waqooyi ee dulmiga ku dhisnaa. Kim waxa ay sheegtay inaan weligeed loo ogolaan xitaa inay u safarto caasimadda dalkaasi. Markaan dib u milicsano halkaan ka nimid iyo weliba meeshii aan joognay, waxaan labadeennaba ku nooleen xabsi, mana awoodin meesha aan rabno inaan aadno iyo weliba waxa aan doonno inaan sameyno. Indhaha muwaadiniinta Kuuriyada Waqooyi wax ma arkaan, dhagahooduna wax ma maqlaan, afkooduna kuma hadlaan, ayuu yiri. John iyo Kim waxa ay go'aan ku gaareen in ay dalka Mareykanka u safraan si noloshooda ay horumar uga sameeyaan, qoysaskooda ay u caawiyaan, balse midba midka kale waxa uu xasuusanayaa dhacdooyinkii ay soo mareen. Kim ayaa waxay xasuusatay markii ay webiga ay ka soo gudbaysay, iyadoo markaasi nafta ay ka sabartay isla markaana u qaadatay in ay dhimanayso. John ayaa sidoo kale asna wuxuu xasuusanayaa uu oga sheekeynayaa sunta uu gacanta ku sito haddii ciidamada militariga ee xadka ilaaliya ay isku dayaan in ay qabtaan si uu suntaasi u cabo. Daawadayaal, dhacdadeena intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa. dhacdadani mid la mid ah intaan sabtida dambe ku kulmi doono waa Bahda Xogmaal oo idin leh nabadgelyo.